dalka Singapore waa jasiirad yar oo ku taala koonfur bari Aasiya. Waa dal caan ku ah horumarka dhaqaale, nadaafadda iyo sharciyadiisii adag. Dalkani Singapore waxaa ka jiro sharciyo gaar ah oo si weyn u soo jiitay indhaha caalamka. Waa mamnuucida ku dhowaad dhammaan noocyada xanjada. Dalkani lagama ogolo in ay dadka xanjo oo idil ay calaajiyaan. Sharcigani waxa uu dhaqan galay sanadkii 1992. Sharci dadka ku nool dalka oo idil looga mamnuucayo in ay xanjo ay u dhowaadaan. Ganacsatadu ma ay soo dejin karaan wax xanjo la xiriira. Qofna dalkani gudihii kuma iibin karo. Dadkuna ma ay calaajin karaan. Go'aankani lagu mamnuucay xanjadu waxa uu noqday mid dadka oo idil si weyn uga yaabiyay ilaa iyo maantana dalxiisayaasha iyo dadyooga kale ee dunida ee maqla arrin ay aad ay ula yaabaan. dowladda Singapore sharcigani dalka oo idil looga mamnuucay xanjo waxa ay u cuskatay dhowr sababood oo lagu tilmaamay in ay salka ay ku hayaan ilaalinta nadaafadda guud iyo ka hortagga dhibaatooyinka bulshada. Kamida sababaha ugu waaweyn ee keenay dalkani Singapore in laga mamnuuco xanjo oo idil waa in xanjadu ay ahayd dhibaato weyn. Dadku marka ay calaaliyaan meel aanan ku habboonayn ayay ku tuuri jireen, sida gaar ahaan wadooyin iyo goobaha ay dadka ay isugu imaadaan. Xanjadu waxa ay dadka ay ku dhajin jireen jidadka la maro, basaska ee dadku ay fadhiistaan, tareenada dhulka hoostiisii mara iyo darbiyada. Xitaa wiishashka ayaa xanjada lagu dhajin jiray iyo meelaha kale ee muhiimka ah ee bulshada ay isugu imaadaan. Meel kasta dalku waxaa suurtagal ahayd in uu qofka isaga oo aanan ogeyn ay xanjo ay ku dhegto. Problemkani maanta in xanjadu dadku ay ku dhajiyaan meelo aanan munaasab ahayn, gaar ahaan in ay meel waliba isagaga tuuraan si ka fiirsi la'aana, waa problem dunida oo idil ilaa iyo Soomaaliya ka jira. Intanina dowladuhu kama ay hortagi karaan ilaa in dadka wacyigoodii uu kordho un mooye. Nadiifinta iyo dib u saarista xanjooyinkani dadka meelaha aanan munaasabka ahayn ay ku dhajiyeenna waxa ay Singapore ay sheegtay in ay ku kici jirtay qarash aad u badan oo dowladda iyo hay'adaha mas'uulka ka ah nadaafadda u isticmaali karaan meelo ka baxsan in dadka xanjo meelo ay ku dhajiyaan. Waa problem weyn. Xitaa waxaa sidoo kale laga qaadi karaa xanjooyinka meelaha lagu dhajiyo cudurro dadku aysan ku baraarugsanayn. waxyaabaha kale ee Singapore xanjada loogaga mamnuucay waxaa lagu sheegay in ay xanjadu qalqal ay gelin jirtay howlaha adeegyada muhiimka ah, sida marka xanjada dadka ay ku dhajiyaan adaha dareenada dadka ku shaqeeya ama albaabada tareenada. Waxa ay xitaa ay keentay ayaa la dhahay marar badan in ay tareenadu dib ay u dhacaan xanjooyinka meelaha lagu tuuray aawadeedii. Waayo wax kasta mar haddii electronic ay wada yihiin, wax walba shaashad maadaama lagala soconayo. Xanjooyinkani marka lagu dhajiyo aalada elektrooniga waxa ay sababaan in aaladahani amkoodii shaqo in uu qalqal uu ku imaado. Tanina waa mid ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee dowladda Singapore ku riixay in dalka oo idil in xanjo ay ka wada mamnuucdo. sidoo kale dalkani Singapore waa dal si weyn ugu dadaala ilaalinta muuqaalka nadaafadda, waana dal nidaamsan aad iyo aad nadaafadda loogu amaano. Xanjada marka dhulka lagu tuuro ay dhaawacdaa bilicda iyo sumcadda dalka ee nadaafadda ku dhisan. sharciga arrintani uga yaala dowladda Singapore waxa uu u kala qaybsan yahay dhowr qaybood. Soo dejinta ganacsatadu waa ka mamnuuc in ay dalka xanjo ay soo geliyaan la marka laga reebo noocyada caafimaadka ee la ogol yahay. Kastoo guud ahaan dalka Singapore xanjo oo idil aanan loo keeni karin, haddana dadka caafimaadka ka shaqeeya, gaar ahaan dadka uu afka xanuuno ama dadka ilkahoodii ay u baahan yihiin in laga shaqaysiyo ee dhaqaatiirta caafimaad ahaan in loo isticmaali karo ay u ogolaadeen. Xanjooyinkani gaarka ah waa kuwa la ogol yahay, laakiin ma aha xanjooyin dadka oo idil ay u wada furan yihiin. Sidoo kale iibinta waa mamnuuc in dalka gudihiisii lagu iibiyo xanjo aanan ahayn tan caafimaadka ee la ogol yahay. qofkii lagu arko si qarsoodi ah in uu uga ganacsanayo arrintanina waxa uu la kulmi karaa ganax aad weyn.
sharciga Singapore inkastoo si toos ah uusan u ciqaabayn qofka afka ku haya ee calaanjinaya xanjada, culayska weyn waxa ay dowladdu ay saartaa iibka iyo soo dejinta. Si weyn ayaa tani loo xadiday in ay dadka ay helaan. Intaa waxaa dheer, qofkii lagu qabto isaga oo xanjo ku tuuraya meel aanan loogu talagelin sida meelaha dadweynuhu ay wada isticmaalaan, waxa uu wajihi doonaa qofka ganaax culus oo la xiriira sharciga qashin-qubka ee Singapore u degsan oo ah sharci aad u adag. qofkii ku xadgudbaa sharcigani xanjada ee u yaala dalka ee qashin-qubka, qofkii lagu helaa isaga oo iibinaya xanjo waxa uu mutaysanayaa ganaax lacageed oo aad u sareeya, weliba taa oo $10,000 oo doolarka Singabuurka ah. xilliyada qaarkoodna hadba qofka marka la qiimeeyo waxa uu sida uu ku mutaysan karaa in uu xabsi uu galo. qofkii xanjo ku tuura meel aanan habboonayn ee dadweynaha ay isugu imaadaanna waxaa lagu soo oogaa sharciga qashin-qubka, waayo dalkani Singapore waa dal ku sumadaysan nadaafadda iyo bilicda. sidaasi darteed waliba ee bilicda dalka wax u dhimi karaa sharci waxa ay leeyihiin qashin-qub la xiriira oo ganaaxyo lacageed iyo xabsi aad u adag oo dadka lagu soo oogo. qofna xaq uma uu lahan xitaa dalxiisayaasha in ay dalkani wax wasaq ah in ay gaarsiiyaan dalalka kale. qofna suurtagal uma aha meesha uu doono ama waddada in uu wax isagaga tuuro. dalkani Singapore waa xudun ganacsi dhaqaale caalami ah. dalkani waxyaabaha uu ku caan baxay kaliya ma aha horumarka dhaqaale, sidoo kale heerkeedii nadaafadda ee aanan lala tartami karin iyo sharciyadeedii adag ee dunida meelo kale in lagu arka ay adag tahay ayaa ah kuwa bilicda guud iyo magac dalkani u sameeya. ilaa in aynu muuqaalkani aynu ka samayno marka laga soo tago sharciga mamnuucidda xanjada ee dalka ee si weyn loo hadalhayo ilaa dalxiisayaasha u noqda arrin ay la yaabaan. Singapore waxa ay sidoo kale ay leedahay xeerar aad u adag, kaasoo ah xeerka qashin-qubka iyo falalka burburinta hantida dadweynaha ama tangaarka ah. sharciyadani waxa ay ka tarjumayaan sida ay dowladda iyo bulshada Singapore ay uga go'an tahay ilaalinta deegaanka, waxyaabo negative ku noqon kara nadiifidda iyo ammaanka iyo haybada dalka uu leeyahay. sidoo kale nadaafadda Singapore ma aha wax iska yimid, waa natiijo sharci adag oo aanan dadka oo idil midna uusan ka baxsan karin iyo wacyigelin bulsho oo joogto ah. sharciga Singapore u yaala ee qashin-qubka waxa uu qashin-qub u yaqaanaa walba ee qof bannaanka uu ku tuuro ee aanan habboonayn. dambaska sigaarka, wanqadaha iyo sidoo kale waxyaabaha dhalooyinka ay dadka ay isticmaalaan ee cabitaanada ahaado mid yar iyo mid weynba iyada oo aanan kala sooc lahayn. waxyaabahani in lagu tuuro jidadka, meelaha dadka ay socdaan, beeraha dadweynaha, kanaalada biyaha, guud ahaan goob kasta oo aanan ahayn weelka qashin-qubka loogu talagalay. qofkii ku tuura nooc walba oo waxa uu tuuray ay ahaadaan waa kategoriga qubka, taas oo la micnaa warqad nadiif ah. xitaa haddii qofka bannaanka uu ku tuuro waa qof qashin-qub bannaanka ku tuuray. warqadda haddii uu qofku u baahan yahay in uu tuuro waa in weelka qashin-qubka loogu talagalay waa in uu geeyaa weelkaana uu dhex dhigaa. ganaaxyada ciqaabta qashin-qubka dalkani Singapore waa mid aad u adag. ujeeddada waa in dowladdu dalka ay ka fogeyso in ay qashin-qub bannaanka ay ku tuuraan. ganaax lacageed ayaa ka mid ah ganaaxyada dadka lagu soo oogo. qofkii lagu helo isaga oo wax uun qashin bannaanka ku tuuraya waxa uu ku mutaysan karaa ganaax lacageed oo $2,000 oo lacagta doolarka Singapore u dhiganta ku dhowaad $1,530 iyo $530 in uu qof keliya qashin uu bannaanka uu ku tuuray in uu ku mutaystana waa ganax aad weyn. dadka amarka dowladda aanan dhagaysan ee si joogta ah ku soo celceliya qashin-qubka ee laga war helo mar saddexaad in ay qashin ay ku tuureen meel aanan ku habboonayn waxaa lagu xukumaa amar shaqo oo toosin ah. dadkani ay u soo hagaagaan, waxaa lagu qasbaa qofkani meelaha ay dadweynuhu ay isugu imaadaan in uu nadaafadda uu ka shaqeeyo. waxa uu xiran doonaa jaakad midabkeedii uu dhalaalayo, jaakad casaan ama jaale aad u dhalaalaysa.
ujeedada dhankani dhalaalay loogu xirayana jaakadani waa in dadka loo muujiyo in qofkani lagu helay dembi qashin quba, sidaasina in ay dowladda ay ku ciqaabtay in uu meelaha babliga ah uu nadiifiyo. tani kaliya dowladdu kama ay wado in ay dadka ay ku ciqaabto, sidoo kalena waa in qofka dembiga geystay iyo dadka kaleba si ay u wada arkaan ahmiyadda ay nadaafaddu ay leedahay. dadka loo dareensiiyo dambiilaha raadka ee sharciga ku xadgudbay si uu dadka tusaale uu ugu noqdo. waxaa sidoo kale jiro ololayaal joogto ah oo Clean and Green Singapore ka oo lagu dhiirigeliyo mas'uuliyadda shakhsiga ah ee ku aadan ilaalinta nadaafadda dalka. dhaqankani waxaa si qoto dheer ugu suntaman bulshada reer Singapore. si lamida Singapore waxa ay si adag ay uga hortagtaa falalka lagu waxyeeleeyo amaba lagu burburiyo hantida guud iyo tangaanka ah. sharciga burburinta hantida ee dalka Singapore u yaala waa mid ka mid sharciyada ugu adag ee caalamka ka jira. sharciga Singapore ee qeexida burburinta hantida waxa uu ku qeexayaa burburinta hantida in loola jeedo in ay tahay fal kasta oo lagu waxyeelaynayo amaba lagu qorayo ama lagu sabirayo, lagu sumadaynayo ama lagu dhajinayo boorar wax kale oo aanan ogolaasho loo haysan, laguna samaynayo hanti guud iyo mid gaar loo leeyahay. tani waxaa ku jiro qoraalada derbiga dadka ay ku qoraan, amaba in la jeexo ama in la xoqo hantida ama ficil kasta oo bedelaya muuqaalka ama qaab dhismeedka hantida iyada oo qofka mulkiilaha leh wax fasax ah aanan laga haysan. mawduucani waxaa dalka Singapore ka yaala sharci aad u adag, waayo dowladdu waxay u aragtaa tani amniga bulshada wax qalqal gelinaya haddii aanan waxba laga qabanin. waayo wax walba ee qof raali uusan ka ahayn ee hantidiisii wax uun lagu sameeyaa fasax la'aan, sharcigani ayaa qofka qabanaya, taasoo la micno ah qof haddii taleefonkiisii qof kale uu kula dhego amaba uu ka dafo wax uun xitaa iyada oo saameyn weyn aanan lahayn, qofkii ku sameeya waa qof ku xadgudbay hantida dadka. sida dunida meelo badan ka jirto, qof in uu derbi ama baabuur uu wax ku buufiyo waa qayb ka mid ah dembiga. xayeysiisyada wadooyinka ku dhagan qayb ka mid ah in uu qofka uu xoqo ama uu tirtiro dalka Singapore waxa ay uga dhigan tahay qof ku xadgudbay hantida dadweynaha. sidaasi darteed qofka dambiilaha ah ee lagu helo in uu sharcigani ka tillaabsaday waxaa lagu xukumaa ganaax lacageed oo aad u sareeya. sidoo kale waxa uu qofka suurtagal ah in uu la kulmo xabsi. muddada xabsiguna waxa ay ku xirnaan doontaa heerka dembiga uu galay uu la eg yahay. ciqaabtu sidoo kale waxaa ka mid ah ulayn iyo jeedalayn in qofka lagu sameeyo. tani waa ciqaabta ugu muranka badan uguna adag ee lagu xukumo dembiga burburinta hantida dadweynaha. sharciga Singapore waxa uu ogol yahay ragga ay da'doodii ay u dhaxayso 16 sano ilaa 50 sano ee lagu helo dembiga burburinta hantida dadweynaha in lagu ciqaabo ulayn oo qofka la jeedaleeyo ama ul gaar ah in loo qaato. intaa u sii dheeraan doona lacageed iyo sidoo kale in xabsi uu mutaysanayo kolka la jeedalay kadib. ciqaabtani jirka ee jeedalka ah ayaa si weyn waxaa u naqdiyey hay-adaha xuquuqda aadanaha ee caalamiga, laakiin dowladda Singapore waxa ay ku adkaysataa in ay tahay mid waxtar leh oo ka hortag u ah dambiyada lagu burburinayo hantida dadweynaha. dhacdada caalamka si weyn u soo jiidatay waa kiiskii Michael Fay oo ahaa wiil dhalinyaro Maraykan ah oo sanadkii 1994 lagu xukumay karbaash kadib markii lagu helay in uu burbur u geystay hantida dadweynaha. waxa uu meel uu ku buufiyay rinji, sidaasina dalka Singapore in meel rinji lagu buufiyo iyada oo fasax aanan la haysan maadaama burburinta hantida dadweynaha ay ka dhigan tahay karbaashka wiilka loo geystay waxa uu soo jiitay indhaha dadweynaha. dowladda Singapore daa'ima waxyaabahani waxa ay ku doodaa sharciyadani adag in ay muhiim ay u yihiin ilaalinta hantida iyo ka hortagga qalqal bulsho, gaar ahaan amniga in ay sidaa ay ku sugto, iyo in sumcadda dalka Singapore ee nidaamsan iyo ammaankeeduba in ay wadadani ay ku jirto.
sharciyada adag ee Singapore ee ka dhanka ah qashin-qubka iyo burburinta hantida ayaa ah tiirar udub dhexdhexaad u ah ilaalinta muuqaalka nadaafadda dalkaasi looga bartay. Inkastoo ciqaabaha sida ulaynta iyo shaqada toosinta ah ee qofka lagu qasbayo meelaha dadweynaha in uu nadiifiyo oo qofka dhar gaar ah loo xirayo, inkastoo ay yihiin kuwa muran badan dhaliyay, haddana waxa ay si cad ay u muujinayaan waxyaabahani dowladda Singapore ay ka go'an tahay in ay la dagaalanto wax walba oo wax u dhimaya bilicdeedii iyo nadaafadeedii iyo amnigeedii. Muwaadiniinta iyo ajaaniibta ku sugan amaba soo booqanaya dalkani Singapore inta badan waa ay ka warqabaan, waa ay u hoggaansamaan xeerarkani iyaga oo ka fogaanaya waxyaabaha cawaaqib xumada ku keeni kara ogaal la'aantoodii haddii xadgudub ay sameeyaan. Kooban dalkani Singapore waa mid ka mid ah dalalka ugu cajiibsan dunida ee xagga iyo nadaafadda dowladuhu wax badan ay ka baran karaan, waayo nadaafaddu waa qayb ka mid ah iimaanka. Nadaafadda guud ee dadweynaha in laga shaqeeyana waa qayb ka mid ah waxyaabaha ugu waaweyn ee la ammaanay marka tangaarka laga soo tago.